riwal badulka ay ku nooshahay dhagorteeda leedahay tan waa maslaxa saalax oo quruxda midabkeeda la moodo kaajal ama Karina Kabuur oo 11 jira kadib markii ay ka soo kasbatay dhaawacyo ka soo gaaray kulamadii isjiidjiidka ee kol hore la safatay weeraryahanka dhaylada jecel ee Catooshere maslaxa biridheela jirdo xidigtan oo xagaaga hore isaga hayaantay xirada tababarka ee Xasan Toob xilliga ay wajahday xaalad halis ah ayaa xilli ciyaareedkan soo bandhigtay guulo waaweyn oo wax ku ool ah iyo natiijo ka dhalatay gool ama filaan ah oo shabaqeeda gilgilay kadib markii ay soo kubada halis oo la baasatay laacib reer Guriceel oo ku wanaagsan xagga goosha kaasoo lagu naanaysa lama joojiye Chester dhaliye Chochole iyo magacyo kale inaan naxariis lado hooyo inaan mistoon hasado geeyadon noloshaydi hooyo macaan haddaba waa kuma kubad sameeyahan kaafiyay nolosha maslaxo kana mayray maalmihii madooba ay soo martay yaa sajiitay meedka Catooshere oo Muqdisho yaala mise waa la canshuuray xageesa ku dambeeya Xasan Toob tababarihii talada xumaa ee xamar uga cararay ciyaartoydiisa markii maslaxa la'aanteed ay meel gaari waayeen koorsa inta ana kula wadaagin warbixintan kooban fadlan la dhac muuqaalkan suu gaar saaxiibo badan adigoo fiiro dhahanaya page-kiga Shaaca Reaction si ay ku soo gaaraan warbixinada iyo barnaamijyada dambe واديغا سليته لا حد كسيدته حد بلان حسكنيه حسن مصطفى ساق حسن توب ودadka qaar ugu yeeraan daanyar duqoobay ayaa kun jeer ka shalaayeen xirada tababarka ee durdur meediya oo ku canaada maslaxo markii ciyaartoydiisu ay ku fashilmeen gudaha garoonka ayna waayeen taageerayaal soo daawasho taga tiimkooda taasoo ku qasabtay tababarahan talada xun inuu xamar isaga tago halka ciyaaryahankiisii Catooshere oo ceel dartiis caliyadii la qiwaayay kadib markii uu shaashadaha caalamka ka arkay maslaxo oo ka qurxoonaatay kaajal iyo Karina Kabuur kana soo muuqatay horyaalka Guriceel gool degdegna laga dhaliyay shabaqee waardiyaha ka ahayd muddo badan dadaal ugu jiray sidoo uu soo taaman lahaa iskeyga maslax cunugeena mustaqbalka maxaa u qana shalay waxa iska diiday nolol mugdiyo oo ku dhisan jacayl danaysiyeeyeen danta looga faa'iideysto xilli ay daris leeyahay duruuf adag balse maanta waxa ay dareemaysaa farxad ay muddo badan u soo samirtay waxayna guranaysaa mirihii ka dhashay go'aankii geesinimada badnaa ee ay kol hore gaartay kane waa shakhsiga kaliya ee rumeeyay riyadii gabadhan oo ku dhici rabtay god qiyaamo oo dheer ka ay dhinacyada ka taagnaayeen Xasan Toob iyo Catooshere waxa uu u fidiyay gacan naxariis oo markii dambe isku bedeshay kalgacal magaciisa oo kooban waa Chochole waxa uu ku dhashay kuna soo barbaaray magaalada Guriceel ee gobolka Galgaduud waxa uu wax ku bartay magaalada caasimadda ee Muqdisho oo ah meesha ay ka hana qaadeen mucaashaqiinta midkood soo maray marxalad adag adduunyada waa harka labadiisa gelin inkastoo ay murugootay maalmo badan madaxuna barkinta u qaban weysay maslaxo maanta waxa uu daran cajiladii kamera wixii ku soo maray waxayna dhex maquuranaysaa habeenadii malabka halka meydka Catooshere Muqdisho lagu cashuurayo markii la waayay wax jiita maadaama macalinkiisa Xasan Toob oo meel cidla kaga dhaqaaqay Catooshere cirka ku soo dumay unsigiisii baa meel kale ka baxaya meydkiisana wax aasa waa la leeyahay wuxuuna Muqdisho ka dhex leeyahay lagma hayo lugna ma hayo mana laameyn karo gaar ay meedka iga soo doonta hadii kale min shibiyan isku bedela meedkana waa cashuura